waxaan ku yiri kiin jaamacadigu codku ma gaartid daba yare you don't have voice codadka xawayaanaadkaad leedahay codadka riyahaad leedahay codkaagoo kale waxaa loogu talagalay kaniisadaha muusiga markii fanaanku uu heesayo oo muusiga la shido waxyaabaha ka dhex yeera ma aragtay that's your voice vocal ma aha cod oo bass ah ma aha what kind of voice is that that's not vocal that's not ma aha cod weyn oo bass ah ma aha tuunka ka haysta anuu garan waayay waa qoom soo socdo tuunkoodii baa ka heesaysaa markaa soo baxday baa nationality-gaaga 7 bilood lagu murmaayo saa u dagaalamayna xiiqnay annaga habareer waa gabadha la daay ilaahay baan ku dhaartay Ethiopian miya ma Soomaaliba ma Talyaaniga soo qaxa you don't know baa ka dhacday saaka markuu saa waaga u bariyay waad seexatay 7 bacooqaadka kugu maqan ilaahay ku dhaartay oo markaad ka siisa baashi aan kugu aqaanay markaa marqaanta ka fakan jirta habareer waxa dhacay way ka fakatay tii markaa ka siisa green ba wax arfaysa waxa isla miriba xaafada soo gasho coosku waa maxay baad seexataa labadeena si fiican isku naqaana naag aniga igu aadana ma tiid marka waxba saakay waxa seexatay 8 o'clock waa ogahay waxa soo kacaysa 8 maghribnimo haddaad soo kacaysa hadda 8 maghribnimo ay noqotay hadda marka soo kacdo waxaan ugu talagalo live ka xilligan aan soo gala ma taqaanaa xalay markaad aragtay inaan ku caayo haara taag baa kugu dhacay ma aadan seexan 7 bax oo qaadad ka soo qaadato University Avenue waad fariisatay waxaad soo qoraysay 7 page sidii baarlamaankii Puntland dawladda dhexe u dhaaranaya looma dhama xal oo dhan ku haysa 29 page baa soo qortay hadala halkii maran ku karbaashi way saakana tolkaaga oo dhan baa live soo galay bal fiirsan kaaga nasabsana waa kaligay dadkuna konton la igu xisaabiyaan ilaahay baan ku dhaartay tolkaayo dhan kii biijada lahaa ilaa iyo gabadhii buufsanayd oo xanuunsanayd oo xamar joogtay ilaa iyo ninkii mushakalka ahaayoo 70 qabiil oo isku tagay iska dhaleen 2 qof ilaa iskama dhalin 99 qof fishi baa iska dhashay kii baa caayo arkay 12 xalay hadal baad haysay oo dad baad wacaysay laga qabtay hoogayo baayay baa ku haysay adigoo noloshaas aan kula soo maray maanta naagti aniga idaba mari lahayd oo rag igu soo faylin lahayd miyaa tahay mise naagti aniga idaba istaagi lahayd baa tahay because qofka kuugu dhow tolnimo oo aad talent ka keeni karta ismii naagahan rag baa dhalacaana hodan cabdiraxmaan iyo gabadhan kaleeto iisha glandheeraha ah oo kiin jaamacayo dad waxaa dhalay waa dhal waxa weeye boqortooyo sharmuuta waa shaqee waxaasa ku soo caytamin hoteeda kale mid baa idin sheegaya wallahi Soomaaliya waa idin waaninaya special qabiilada gaar biliis waa idin baryayaa 2 qof markay isqabato qabiil yaa loo leexin aniga naag baa is haynaa naagtana rag bay ii soo dirsatay xataa ragga uma jawaabaya because waa dhagaxna aniga uma jawaabo dhagax weliga ay allaha xaafada marka dhagax soo socdo marka dhagax naga joog miyaa la dhahaa no guriga laga soo tuura la aado Soomaaliya hadaa xasuustaan dagaaladii marka dadka aniga ay caynay commentiga iyo ragga aniga videoyada ii soo duubayo gidigood waxaan u arkaa aniga dhagaxan ay daba yar soo tuurtay orgiya soo tuurtay dhagaxantan anu waxa kaliya ooga reen karo waxay tahay marka weliga ay allaha 7 qof xataa dagaalo badan aniga ma soo galin agjooli noloshayda inta noola 4 qof baa isdilla gacan isku geysanay haddii hadda idin dhaho weliga ligama guulaysan hadee waa faanaysaa baa ileediin moogta marka waa ka gudbaya halka marka weliga iyo allahay haday 4 naag ama 3 naag isugu ka tagaan noloshaada hal aqli weliga samee naagta aan markii koowaad number 1 aa qabsatay commenti taas inta kala ma aragtay dhabarka ka dilaan laakiin taas asiideen maalintii taas gacantaada ka baxsato 4 gacmood baa ku 8 waa 4 iyo 4 8 gacmood baa kugu soconaysa laakiin inta labada julbood hoostooda gashato oo timeeda saa gacanta ugu duubato halka surka ka qanin taa commenti saa marna u jagee marna jil xabadka oga wad marna surka ka qanin taas le commenti inta kala korka ka dilaan umadaas ka qabanaysa ilaahay ma fahamtay marka saasa loo dagaalamo horta aan ku baray daba yaroy weliga dagaal ma aadan galin ani adoo isnaqaana si fiican baa isku naqaana dheer haday noqotan intaas ay leegtahay cabsi haday noqotan wadnaha inta ku leeg wadnaha kan ku leeg I know you very well
والله بوغاغا inaan kala furin iyo billahi iyo tallahi buugaaga haddaan kala furo waxaan ka soo bilaabayaa sarti tifqaayo teed street oo ay isla deganeen ilaa iyo bakaarahan ka soo bilaabayaa xaafadii African Village u dhaweeyay isla deganeen ilaa iyo waxaan ku keenayaa Mareykan Minnesota ilaa iyo Boston markaan kugu arko tusbax qoorta ay ku wadatay wallahi taana u akhrinaya xataa dalmar tii idin soo dhex martaa akhrinaya waa hadda cagaha dhulka dhigi weysid dadka ay igu soo direysana waxba igama tarayaan wallahi dekenaday kugu badinayaan moor aniga iga hadasho moor uu aniga dabaysto isoocayo moor shootaro ninkii 7 qof iska dhaleen xataa xawayaanku ku jiro uu iga soo hadlo moor adiga aa u dhimato waa ceebta isku ceesh aan cunaynay oo aan dharka isla gashanaynay baatigayga dhaqan inta oonsi ku shido aan dhahay ho habar yar gasho shaaha inta u soo kariyo cadays ugu soo dara aan soo hordhigay oo aan gurigayga ku soo dhaweynay hadhicin mahadjabin maxaa ku cad maxaa ku madow aan dhahay waxa ku kalifi kara intuu social media galo inuu niman igu soo fayliyo I wanna know wallahi billahi Soomaaliyay kaftana u malaysaan wallahi aniga wax kale ta marabo gabadhaas waxa ku kalifay inay aniga intaasoo nin igu soo dirto oo intaasoo jaa'ifa la ii geysto oo intaasoo dhib iyo ceeb aan lahayn la ii geysto haduu marqaanku ka tusay wax la garta way bal wadaan waxa way dad qurmuuna qaarna waa leeyin qaarna malaha marka haduu marqaanku ka tusay inaad aniga rag igu soo dirto taas aday meel ku taala laakiin inaad dhahdo niciimo hal caaysan hal sameeyo ani ima qabato waliba anoo habar yartaaye oo ehelnimo iyo dad aan isugu dhownahay oo wax walba waa arkay naaga baqbaqlo oo habar yaraheeda nahay dhahayo heeseeda soo dhiganay ma awl soo dhigataan dooq uma dhageysanaysaani dooq uma dhageysanaysaani dana kala u dhageysanaysaan yesterday maxaa soo dhageysan weyseen heesi maxaa shalay soo dhageysan weydeen maxaa maanta aniga heesi iigu shidaysaan dooq idinka ma aha dan kala leedihiin wallahi dooq inay idinka ahayn waa arkay naagahan wajiga kaliya ka cagaha xataa aan dhaqan oo aqaan oo 15 cunug guryaha ku soo xira 70 cunug guryaha ku soo xiro gurigooda markii saa loo galo dheebar ku sanka kugu dhufanaya caruurta tahriibiya wadamada kale u rara caruurta si ay naag ula challenge gareeyaan adigoo noloshaadii ay ka gashay 10 cunuga dhashay inta diyaarad saarto si aan naag ula challenge gareyso oo goonna iyo cambuur dhexda ka xiran inaa gashato darteed oo ay kaaga soo aruurtay caruurtaadi inta xawishay ay kaaga soo aruurtay ina Snapchat baraarugayo ilbaxay adigoo afka saa ka siinaya bay kaaga soo aruurta caruurtaadi meel ay ku ogtaa iska ilaahay baan ku dhaartay gurigaaga Nairobi waa la iiga sheekeynay guriga iridiisa hadaa marto saxara sanka kugu dhufanaysa waayo cunugaaga ugu yar fucking 8 months old way saa ugu qorta caruurtaada inay xawisho adiguna ka dhexniikisa karmeel markaas aniga hees naag gabalkeedu dhacayo xataa ayeeyo u soo heesta aniga heesteed inta ii soo shidtay leh fiifa heblaayo fiifa caruurtaada dheebarkooda naaya fiifa noloshaada kala dhacsanaya FIFA your life disaster life FIFA your FIFA your problem naya FIFA qabyaalada ku qaada kuma dhigto wasakh yahay marka waxa idin sheegaya ilma adeer riyaalo macaano meeshan af Soomaalina waa ku kala harnaaniya adinku gacanna waa ku kala harnay magaalana waa isla deganahay meeshan wax la booteeyo male Mareykan baa ku sheegaya teeda kale anuu green card baan haystaa aduu citizen baa tahay Mareykan baa tahay saasay tahay daqsi korkayga saaray inaa saa u qaada lama ogola waayo permanent resident ay wadankan deganahay adiguna wadanka degan tahay waliba anu waxaan u shaqeeyaa dawladda u shaqeeyaa oo Honey Bean County ka shaqeeyaa oo sharciga adiga waa ka badiya oo waa ogahay aniga wixii ii xun iyo wixii ii san so maanta waa ku dilayaa kuma oran waxaan ku iri kaliya timahan waa sababta u jarato dadka u sheeg inaad madaxa cambaar ka qabto